ciidanka beesha ciise oo dhowrkii saacee lasoo dhaafay la ogaaday inay si qarsoodi ah u heleen hub ka yimid waddanka Jabuuti kaasi oo la sheegay inuu yahay midkii ugu dambeeyay oo Jabuuti ay soo saartay. haddaba hubkan noocyadu iskugu jiro halka loo soo mariyay beesha ciise ayaan faahfaahin kaaga hayaa. waxaan kaloo kula wadaagi doonaa Somaliland oo tallaabo adag ka qaadaysa tiro odayaal ah oo u dhashay beesha ciise kuwaas oo lagu eedeeyay inay dabada ka riixayaan xeerka buugga ciise. macluumaadka ayaan kuu soo gudbin doonaa. waxaan kaloo kuu soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga soo warinayo deegaano ka mid ah gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag iyo ciidanka Somaliland oo furin hor la ka bilaabay aaga Sool. qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan idiin faahfaahin doonaa saaxiibayaal ee soo dhawaada. haddii tahay markii kuugu horeysayna ku soo biri daraja media oo subscribe dheh waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daawacanay ee soo dhawow daawade. qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal ku bilaabayaa dhinacaas iyo waddanka Jabuuti. xalay xilli dambe ilaa shalay galabkii gaadiid fara badan oo ah kuwa dagaalka isla markaana teendooyin iyo sidoo kale agab kaleba ay dusha ka saaran yihiin ayaa la sheegay inay siyaabo kala duwan uga soo tallaabeen xadka Jabuuti Itoobiya ilaa gobolka Awdal. ku dhawaad 44 gaadiid oo aad u fara badan oo canameelayaal ay ku jiraan rasaas fara badanna ay saaran yihiin ayaa la aaminsan yahay inay Jabuuti u soo dirtay dhinaca gobolka Awdal. Ismaaciil Cumar Geelle oo beesha ciise ka soo jeeda ma uusan qarsan taageerada uu la garab taagan yahay beeshiisa, waxaana xogaha iyo wararka hadda la helayahay ay tilmaamayaan in tani ay tahay ceeb iyo fadeexad weyn oo dul hoganaysa Somaliland oo ku aadan inay heli weyday xogta gaadiidka halkaa ka soo tallaabay. dowladda Itoobiya ayaa la soo warinaya in lagu wargeliyay in gaadiid dagaal oo ay leedahay dowladda Jabuuti ay ka soo tallaabeen dhankaasi isla markaana ay soo aadeen dhinaca waddanka ama dhinaca Somaliland gaar ahaan aaga gobolka Awdal oo ah xuduud weyn. beesha ciise waxaa la sheegay inaysan iyadu dalban gurmadka, balse Ismaaciil Cumar Geelle waxaa la sheegay inuu si weyn uga carooday ficilada ka yimid dhinaca Somaliland iyo tallaabooyin hore loo qaaday oo ku saabsan xaaladaha halkaasi ka taagan. in la soo bandhigi waayay xeerka buugga ciise iyo in sidaas lamida tallaabooyin laga qaadi waayay ciddii qashqashaada ka bilowday magaalada Boorama ayuu Ismaaciil Cumar Geelle si weyn uga carooday. inkastoo dowladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabataynta hubka, haddana dowladda Soomaaliya oo xiriir dhow la Jabuuti waxaan ogaanay in xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya uu wax ka ogaa hubka halkaasi laga soo daabulay. hubkan gacanta waxaa loo gelin doonaa maleeshiyaad la abaabulay oo boqolaal ah kuwaasoo jabhada qaybeeyo u saabsan ama u kala qaybsan oo ciidanka Somaliland mar walba weerari kara. waana fariintii ugu dambeysay oo dowladda Jabuuti ay doonayso inuu kala macaamisho cid walba oo ka soo horjeeda in la soo bandhigo xeerka buugga ciise. wasiirka arrimaha dibadda waddanka Jabuuti oo isna beesha ciise ka soo jeeda ayaa waxa uu yiri hadal uu soo saaray: ma garanayo sababta ay Somaliland iyo kuwa dariska la ah ee Samaroonku u diidan yihiin wax walba oo ku saabsan mowduucyada la xiriira in la soo bandhigo buuggan, laakiin buugga ogow waxa uu soo bandhigayaa dhaqan, isir, walaaltinimo yacni dad isjecel deegaanada ay degto beesho laga soo bilaabo Itoobiya, Jabuuti, Somaliland, Soomaaliya iyo deegaano kale oo fara badan. beesha ciisana waa beel aad u fara badan. dabcan Samaroonkuna waxay diidayaan in ay ciisuhu soo bandhigaan waxyaabahaasi, waana waxa ay diidan yihiin sida ay khubaradu aaminsan yihiin. saraakiil sarsare waxay tilmaameen in toddobaadyadii la soo dhaafay sidaas oo kale Ismaaciil Cumar Geelle saraakiil ciidan uu u soo diray dhinaca magaalada Saylac, halkaasoo la sheegay in ay kula soo kulmeen ugaaska guud ee beesha ciise iyo sidoo kale shakhsiyaad kale. waxaana ogaanay in kulankaasi intii uu socday diiradda lagu saaray qodobo waaweyn oo masiirka maamulka iyo sidoo kale dadka deegaanka beesha ciise taabanaya. in xataa la dhiso dhismihii maamulka Awdal State oo beesha ciise ay hormuud ka noqoto, iyo sidaas la mid ah in Samaroonka lala fariisto oo lala hadlo oo wixii wada hadal iyo wada xaajooda si hoose lagu xaliyo ayaa waxay ka mid ahaayeen qodobo dhowr ah oo hore loogu heshiiyey. Samaroonka waxaa la sheegay inaysan iyagu haba yaraatee ogoleen inay wax ku darsadaan beesha ciise, walow la wada dogo magaalada Boorama iyo sidoo kale magaalada Saylac. haddana ciise waxay aaminsan yihiin in iyagu ay uga badan yihiin meelahaasi.
beesha ciise waxaa la tilmaamay inay si weyn uga carootay ficiladii lagu dhaqaaqay ee ku saabsanaa mudaharaadyadii. hubkan waxaa la sheegay hadda laga soo tallaabiyey dhinaca waddanka Jabuuti inuu iskugu jiro qoriga la yiraahdo shanshuutarka oo dhowr iyo 20 xabba ah, baastooladaha la yiraahdo Belgiumka oo 72 xabba ah, bambaanooyin la sheegay inay kuwa gacmaha laga tuuray yihiin, qoriga la yiraahdo AD5, qoriga la yiraahdo Chantachikuwe, qoriga la yiraahdo M30, qoriga la yiraahdo M12, qoriga la yiraahdo MM20 iyo sidoo kale baasuukayaal, kuwaas oo la sheegay inay yihiin hub Faransiisku uu leeyahay balse Jabuuti lagu farsameeyay. tani waa dharbaxa culus oo ku dhacday beesha Samaroon sababtoo ah hubkan wuxuu hal mar gumaadi karaa magaalooyin dhan, wuxuuna burburin karaa magaalo kasta oo ka mid ah gobolka Awdal, gaar ahaan Boorama oo hadda ay isla haysiiyeen beesha taagta daran ee Samaroon. Samaroonku waxaa la sheegay inay dulmi iyo sidoo kale exleeshabo ku wadaan beesha ay dariska iyo dharig wanaagga yihiin ee Ciisaha, waxaana tiro dhowr jeer ah la arkay sida ay Ciisuhu u doonayaan in ay wada deganaanshaha u ilaaliyaan, balse beesha Samaroonku iyagu taas waa ay diidan yihiin. isku soo wada duubo hadda lama oga xaaladdu halkay ku biyo shuban doonto, laakiin khubarada arrimaha la socotaahi waxay leeyihiin waa in si degdeg ah Ciisaha iyo sidoo kale Samaroonku uga wada hadlaan wixii jira, isla markaana loo dhiraandhiriyo wax walba oo colaadda keenayana si hoose looga wada hadlo sida ay khubaradu aaminsan yihiin. isku soo wada duubo xaaladaha halkan ka taagan, dad badan waxay aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi doonaan, laakiin arrimahan iyo kuwo kaleba waxa ay ku tusinayaan sida ay xaaladdu marba marka ka dambaysa iskugu bedelayso gacan ka hadal aan la oqoon halka ay xaaladoodu ku dambayn doonto. qodobadeena kale ayaynu soo eegaynaa. markana Somaliland ayaa la sheegay inay tallaabo cad ka qaadi doonto odayaal dhaqameed u dhashay beesha Ciise, kuwaasoo la sheegay inay weli dabada ka riixayaan in la soo bandhigo xeerka buugga Ciise. dabcan xeerka buugga Ciise hadda hakad ayaa lagu sameeyay, laakiin waxaan ogaanay in odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha Ciise ay dabada ka riixayaan weli arrinkaasi. saraakiil ka tirsan Somaliland ayaa goordhow waxay tilmaameen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan odayaasha dhaqanka, kuwaasoo la sheegay inay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Boorama iyo Saylac. ciidamada RRU ayaa shalay la wadaagay inay u daateen guri uu lahaa wiil u dhalay ugaaska guud ee beesha Ciise, waxaana la sheegay markii dambe in gacanta lagu dhigay 2 qof oo guriga ku sugnaa. sidaas oo kale xili dambe ciidamada RRU howlgal ay sameeyeen ayaa la sheegay in lagu daatay guri ku yaala magaalada Boorame, halkaasoo la sheegay in laga soo qabtay 2 oday dhaqameed oo lagu eedeynayo inay xaaladda dab kale ku sii shidayaan. saraakiisha maamulka Somaliland qaarkood waxay tilmaameen inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo looga jawaabayo ficiladan. saraakiishu waxay tilmaameen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidanka Somaliland oo la sheegay in beesha Ciise ay abaabulayso. askari ka tirsan ciidanka biliiska magaalada Boorama ayaa warbaahinta gudaha magaaladaasi wuxuu u sheegay in loo xil saaray in ay ilaaliyaan amniga iyo badqabka magaalada Boorame, laakiin ay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo lagu helo in ay qashqashaadayso maamulkan curdunka ah ee maamulka magaalada Boorame iyo kan gobolka Awdal oo la sheegay inay la tacaalayaan mudaharaadyadii ka dhashay dadkii dibadbaxa dhigayay. beesha Ciise waa dulmane, beesha Samaroonna waxay garab ka helaysaa Somaliland, ayuu yiri oday ka mid ah odayaasha dhaqanka ee la baadi goobayo. haddii Somaliland gacan bir ah ay ku qabato magaalada Boorama iyo sidoo kale magaalooyinka kale oo aysan mardama dibadbax ka dhigin, tani dabcan waxay fursad u tahay cid walba oo doonaysay inay qashqashaado nabadda iyo xasiloonida, waxayna sidaas si lamid ah tusinaysaa dadka kale inaysan xaaladan oo kale ku kasoomin. hadda xaaladda magaalada Boorama waa ay degan tahay, waxaana mararka qaar la maqlayaa tacshirado kooban oo lagu dejinayo xaaladda, taas oo la sheegay in maleeshiyaad ay ridayaan. ugu dambeyntiina dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ayaa laga dareemayaa gobolada Sool ilaa Sanaag. ciidanka Somaliland ayaa xili dambe howlgallo waxay ka fuliyeen bariga magaalada Guumeys oo ka tirsan gobolka Sool, halkaasoo la sheegay in ciidanka waqooyi bari ay feejignaan dheeraad ku jireen. 2 sargaal oo ka tirsan ciidanka waqooyi bari ayaa goordhow waxay ii sheegeen inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda, waxayna sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah.
xaajadu lama oga halkay ku biyo shuban doonto laakiin hadda sidii wax isku bedelayaan markaad fiirisid waxaad arki kartaa inay xaaladdu tegi doonto meel aan waxba laga qaban karin oo dhinacyaduna hub isku adeegsanayaan Somaliland iyo sidoo kale waqooyi barina weligoodba feejignaan ayay ku kala jireen oo midba midka kale ayuu iska ilaalinayay isagoo ka cabsi qaba inuu dagaal ku soo qaado ama dagaal halkaasi ay ka dhashaan gudahana saaxiibayaal wararkeena waa intaas haday tahay markii kuugu horeysay ku soo biri Daraja Media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada halkan aan ku daabacnay ee habeen wanaagsan